Assalaamu calaykum ardayda Soomaaliyeed waan idin salaamay meel walba oo dunida aad ka joogtaan salaan kadib casharkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay jumladooyin Ingiriis ah sentences jumladooyin don't shout me at the ears dhagaxa igaaga qaylinin qof agtaadu qayliya oo kale waad dhihi kartaa dhagaxa igaaga qaylinin you're sorry raaligelintaada can't change ma bedeli karto my condition xaaladeyda ama marxaladeyda I'm not sure ma hubi about that arrinkaasi aniga arrintaasi ma huwa waxaadan hubin waa dhihi kartaa speak up sare u hadal and make me understand when I fancy your thought hadalkaaga tanna waxaad isticmaali kartaa waqtiga aad sheekay sameynayso oo kale qofka aad la sameynaysid hadduu hadalkiisa liito oo aad dhihi kartaa sare u hadal when I fancy hadalkaaga